halkan waxaan ka geli doonaa contents of the chapter 7 waxaan ka geli doonaa chapterka 7 casharada aan ku qaadan doono waxa kamid ah causes of Somali civil war waxa kamid ah casharada aan ku qaadan doono intaas adeer aan ka soo hadalnay overview bay ahayd adeer baan gudaha waxaan u galeynaa chapterkii causes of Somali civil war dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya maxaa sababay casharka koowaad ee chapterkan weeye Somali rebels and the warlords waxaan sidoo kale ka hadli doonaa jamhadihii Soomaaliya iyo qabqablayaashii jamhadahaas hogaamin jiray oo mas'uulka ka ahaa burburkii iyo dagaalkii sokeeye the decline of the Siyaad Barre regime waxaan ka hadli doonaa dhicitaankii the fall of Siyaad Barre regime dhicitaankii dawladii Siyaad Barre ayaan ka hadli doonaa overthrow of the Barre from the power waxaan ka hadli doonaa sidii xilka looga tuuray Siyaad Barre iyo xilligii laga tuuray cidii ka tuuray United Nations intervention in 1992 up to 1995 waxaan ka hadli doonaa faragelintii ee United Nations ay ku sameysay waxa loo yaqaano Soomaaliya 1992 soona afjarmay 95 waxaan ugu dambeyn chapterka uga hadli doonaa effects of Somali civil war chapterkani waa saameynta uu dagaalkii sokeeye Soomaaliya ku yeeshay effects of Somali civil war chapterkan waa dheer yahay historyguna waa sheeko badan tahay sharaxaad badan tahay fahanka bandiirada saareyna casharka inaan dhameyntiisa fidiirada ma saareyno waxaan u jajabin doonaa parties kilibyo baan u jajabin doonaa oo 3 video baan ka soo sameyn doonaa ama 3 presentation ayaan ka sameyn doonaa waxaan ku hormari doonaa oo israacin doonaa causes of Somali civil war ayaan videogan uga hadli doonaa iyo Somali rebels and the warlords waxaan kaga hadli doonaa waxa loo yaqaano jamhadihii Soomaaliya iyo qabqablayaashii labadaas ciwaan baan maanta ka hadli doonaa kadibna waxaan ka hadli doonaa videogan xiga the decline of Siyaad Barre regime iyo the overthrow of the Barre from the power labadaas ciwaanna mar baan ka hadli doonaa sidoo kalena waxaan ugu dambeyn ka hadli doonaa videoga saddexaad United Nations intervention iyo effects of Somali civil war labadaas aan kaga hadli doonaa wada ila socod si fiican ila soco causes of Somali civil war waxaan halkan kaga hadli doonaa maxaa sababay dagaalkii sokeeye ee Soomaalida maxaa isku diray oo soo koobnay PowerPoint baan ka soo dhignay the defeat of Somalia in Ogaden war in 1978 and the spirit of Somali National Army nabarkii koowaad Soomaalida wuxuu ka soo gaaray waa jabkii ay ku soo jabeen ciidamada dalka Soomaaliya dagaalkii 77 ama 1977 Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray iyo ciidanku markay ku soo jabeen dagaalkaas waxa dhacday dhacdo aad u xanuun badan oo la yiraahdo spirit of Somali National Army waxa kala jabay oo kala qaybsamay ciidamadii dagaalamayay waxaana keenay baa la yiraahdaa cadaalad darro ay ka tabanayeen iyo xadgudubyo ay kula kacday taliskii markaa dalka ka jiray ee Siyaad Barre oo waxa dhacday in jigjiga saraakiil badan lagu laayay magaalada Hargeysa saraakiil badan lagu laayay Muqdisho isku daygii inqilaabka loo laayay dartiis saraakiil badan loo laayay taasoo waxay keentay in Somali National Army uu kala jabo oo noqdo isu bedelo jamhado isu bedelo waana ka soo sheekeynay sidoo kale taas waxay ahayd sabab keentay in Soomaaliya ay burbudho oo dagaal sokeeye Soomaaliya ka dhaco qodobka labaadna waxa weeye sababta labaad the hard dictatorship system of Siyaad Barre waa xukunkii adkaa ee Siyaad Barre wuxuu laftirkiisu keenay nidaamkii dictatoriyada ku saleysnaa ee Siyaad Barre wuxuu keenay in dalka uu burburo oo sabab uu keenay Siyaad Barre markuu arkay in dadkii ay mucaaradsan yihiin number 1 waxa la yiraahdaa dagaalkii 77 markii la galay oo ciidamadii Soomaaliya ay guul badan soo hooyeen ayaa Siyaad Barre waxa la yiraahdaa ma jeclayn nimaan usaga ahayn in la amaano ayaa waxa dhacday in saraakiil badan magacyadooda la sheego oo la yiraahdo hebel guulwada iyo usagana waxa la oran jiray guulwada Siyaad ayaa la oran jiray guulwada kalena inuu dalku ka dhashay ma rabin marka si uu dadka u cabsi geliyo ayuu wuxuu sameeyay wuxuu soo xulay saraakiishii
la dalacsiin lahaa oo guulaha ka soo hooyay dagaalkii 77 ayuu rag u diray gudiya waa la soo xulay ilaa 84 sarkaal baa la soo xulay gabi ahaantoodba waa la toogtay taasina waxay ahayd dictatoriyada ayay ahayd oo wuxuu rabay dadka inuu ku cabsi geliyo sidoo kale waxa la yiraahdaa dictatoriyada waxa ka mid ahayd wixii ka dhacay magaalada Hargeysa 1988 oo magaalada Hargeysa waxay mucaarad ku noqotay Siyaad Barre jamhadda SNM ay taageersanayeen dadkeedu wuxuu soo jeediyay in gabi ahaanba magaalada dhulka la simo maadaama amar diido ay sameysay sidoo kale wuxuu burburiyay wuxuu leyn jiray cid kasta oo taageerada jamhadaha gacan adag ayuu dadka ku qabtay is adkeyntii iyo dictatoriyadii Siyaad Barre iyo madaxdigiisii waxay horseeday in ay keento burbur sidoo kale markaad hore u sii kacdo 1970 iyo saddexdii waxa dhacday leyntii culimada ayay ku beegnayd oo markuu culimada leenayo waxa la yiraahdaa Siyaad Barre waxa la taliyay rag kamid ah golihii kacaanka sare waxay dheen culimada tan ma iska dayso shacabka inuu ku kacaya wuxuu yiri lama dhahayo Siyaad Barre baa baqay sida darteed ma dadka u leenaya marka ninkaasu nin adag buu ahaa oo dictatoriyadiisu ay aad u adag tahay oo dictator ayuu ahaa dictator kastana burbur baa u dambeeya waxa tusaale ugu filan Syria meeshii ku dambeysay Libya Muammar al-Gaddafi 44 sano kadib dalkiisii meeshuu ku sugan yahay waa loo jeedaa dalal badan oo dictatoriyad ay ka jidhay burbur ayaa u dambeysay Hitler baa ku soo dhigateen Adolf Hitler ninkii la oran jiray Germany meeshuu ku dambeeyay waa ogeydeen nidaam kasta oo dictator waxa ka dambeeya waa burbur waa dagaal sokeeye waa magaranaysaa dalku inuu faraha ka baxo oo dadku in la pressure gareeyo wixii afka la qabto waa maxay feeruhu ka dilaaca marka waxaan dhihi karnaa dictatoriyadu waxay keentay in Soomaalidu qarax the emergency of Somali rebels and the intervention of the Ethiopia dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya waxa 90% lagu eedeeyaa oo dadka aad u laayay oo qabaa'ilka isticmaalay oo dadka isku diray baa la yiraahdaa jamhadihii dalka Soomaaliya Somali rebels iyo intervention of Ethiopia jamhadaha kan waxa shidaalka ku soo shubi jiray oo soo taageeri jiray oo hubka siin jiray oo tababarka siin jiray oo ay ka soo shiraacan jireen oo saldhigyada ugu waaweyn ee ku lahaayeen Ethiopia sida jamhadii SSDF jamhadii USC jamhadii SNM dhammaan Ethiopia ayaa waxay ahaayeen jamhada ay dabada ka riixayso ayay ahaayeen marka jamhadahaasu waxay keeneen dawladii Siyaad Barre markay rideen oo anaga hadda ay soo sheegaynay USC Muqdisho ka saadhay Siyaad Barre markii dalkii dawladii laga saaray oo dictatorkii la riday Siyaad Barre jamhadihii maysan keenin wax bedela dawladii oo jamhadu waxay ku dhisnaayeen qabaa'il waxay bilaabeen inay ku loolamaaneen awooda dalka loolankiina wuxuu keenay in cidina ku guuleysan weydo dadkiina qabaa'il la isugu laayo haddaad YouTube ka gasho kilibyo waxa helaysaa hogaamiyaashii Caydiid rag badan oo jamhadihii hogaaminayay oo dadka ugu qodbeynaya cadiifada qabiilka kicinaya oo la reer hebel iska cish waxay rabaan inay magaranaysaa dhulkeena ka qabsadaan Jaffa hadii loo kuuran yahay Sara marka jamhadu waxay isku direen qabaa'ilka ay isku direen taasana keentay in Soomaalidu isbaabi'iso oo nag iska dhigto gadaal baan ugu tagi doonaa oo dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya waxa la yiraahdaa waxa ku dhintay 500,000 people 500,000 oo qof ayaa ku nafwaayay baa la dhahaa dagaalka kaliya abaartii cagabarna 1 milyan bay dishay baa la dhahaa totalku waa 1 milyan iyo bar ayaa 2 sano gudahood ku dhintay the use of tribalism by the rebellionists sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa sidoo kale qodobkan wuxuu ka hadlayaa the use of tribalism by the rebellionists waxyaabaha sababay dagaalkii sokeeye waxa kamid ahaa qoomiye jamhadaha rebellionska ama gorilaha oo isticmaalayay waxa la yiraahdo tribalismka qabyaalada oo jamhad kastaba waxay salka kula jidhay qabiil
waxayna qabiilka u isticmaalaysay inay ku gaadho hadafkeeda iyo political interestgeeda inay ku gaadho iyadoo qabaa'ilada kale u tusinaysa cadowgooda inay yihiin oo hadda Soomaaliya hadaa fiiriso wali way ka jira cadaawadii clan animosity cadaawadii hostility ka dhaxaysay qabaa'ilada wali way ka jira Soomaaliya taasna waxa abuuray baa la yiraahdaa oo isnacaybka qabaa'ilada Soomaaliya waxa abuuray jamhadihii dalka Soomaaliya waagi hore Soomaalidu qabaa'illadoodu way isdhexgali jireen kan Puntland degan Kismaayo wuxuu deganaa Xamar kan Xamar degan Boosaaso deganaa dadku way isdhexgali jireen meeshii la doonaa la mari jiray ana waa iska jidhay laakiin se qabaa'ilo sida tan oo kala xirxiran iyo dal sida tan oo kala xirxiran ma jirin laakiin se waxa ka mas'uul ah oo dalka kala xirxiray hogaamiye kooxeedkii iyo jamhadihii ayaa waxay isticmaaleen tribalism sidoo kale the different political interests of the rebels waxa sabab weyn u ah dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya dana siyaasadeed oo kala duwan ay lahaayeen rebelsku jamhad kasta waxay rabtay inay dalka taladiisa ay la wareegto jamhad wax uma ogolayn sida taas waxay horseeday in dalkii taladiisii siyaasadeed la isku fahmi waayo oo haddii dadku ay kala interest duwan yihiin marnaba lagama yaabo inay heshiiyaan ilaa haddana Soomaaliya way ka taagan tahay oo Soomaalidu markastoo la soo dhawaado waa la kala boodaya sababtuna waa maxay there is a different political interests wali waxa jira dana siyaasadeed oo la kala ilaashanayo oo siyaasiyiintu ay kala ilaashanayaan run ahaantii waxa ishaaya shacabka Soomaaliyeed maaha laakiin se waxa shacabka Soomaaliyeed isku diray waa siyaasiyiin ilaa haddana shacabka Soomaaliyeed waxa hortaagan waa siyaasiyiin waxayna soo bilaabatay xilligii jamhadaha ayay soo bilaabatay in dadka la kala qoqobo dadka la isku diro oo cadow la iskaga dhigo halkan waxaan ka galeynaa ciwaanka fiidiyogan ugu dambeeya oo la yiraahdo rebels and the warlords jamhadihii iyo waxaan wax ka dhihi doonaa iyo warlords iyo qabqablayaashii hogaamiye kooxeedkii dagaal oogayaashii jamhadahaas hogaaminayay waxa ugu horeeya waa Somali civil war was ongoing civil war marka laga hadlayo dagaalka sokeeye ee Soomaaliya wuxuu ahaa was ongoing civil war taking place in Somalia wuxuu ahaa dagaalka sokeeye wuxuu ahaa dagaal aan kala go'o lahayn oo Soomaaliya muddo dheer ka socday oo dad badanna galaaftay ayaa lagu qeexaa dagaalka sokeeye ee Soomaaliya waa dagaal aad u daba dheer oo aad u xanuun badan ayuu wuxuuna dagaalkana ka soo bilowday it grew out wuxuu ahaa natiijadii ka dhalatay resistance of military rule iska caabintii ay sameysay dawladii xukunkii militariga ee Siyaad Barre led by the Siyaad Barre during 1980s 1980 ayaa jamhaduhu curteen markii jamhaduhu curteen Siyaad Barre wuxuu sameeyay resistance iska caabin ayuu sameeyay oo wuxuu sameeyay dhammaan cidii jamaad taageera magaaladii laga taageero cagta ayuu mariyay taasina waxay horseeday in jamhadihii shacabkii ay soo dhaweeyaan oo dhanka jamhadaha ay u bataan shacabku ay dan moodaanin inay dantooda ay ugu jidho inay taageeraan jamhadaha in 1988 up to 1990 ayaa dagaalkii ugu baanaa oo dhex maray Siyaad Barre iyo jamhadaha baa la yiraahdaa oo dalka qalalaasi ugu badnaa uu ka socday markii ugu xooganaayeen ay ahaayeen the Somali armed forces began engaging in various armed rebel groups including dagaalkii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidamadii ka amar qaadan jiray Siyaad Barre oo ka soo haray ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo jamhadaha waxa dagaalkii ugu adkaa u dhex maray 1980 intii u dhaxaysay ilaa 1990 ayaa dagaalkii ugu baanaa oo dhex maray ilaa 1991 Siyaad Barre la rido jamhadihii dagaalka la galay Siyaad Barre waxa kamid ahaa Somali Salvation Democratic Front SSDF in North Eastern Somalia waxay ka jiray gobolada tan Puntland ee waqooyi bari ee Soomaaliya ayay ka jiray oo ka dagaalami jiray oo laga taageersanaa halkaan ay ka duuli jiray dawladana dhulkaan ay kula dagaalami jiray gobolka Mudug gobolka Nugaal gobolka Bari gobolada tan waxa la isku dhahaa North Eastern Somalia founded in 1978 san hore u soo sheegnay 1978 ayaa la asaasay dalka Ethiopia ayaa lagu asaasay waxaana asaasay
rag badan oo saraakiil ah oo xagga isugu tagay siyaad barre ka cararay ayaa asaasay Ethiopia isu dhiibay waxaana hogaaminayay jamhadaas nin la yiraahdo Allah u naxariistay Colonel Abdullahi Yusuf Ahmed oo wada garanaysaa nin ahana asaasihii Puntland madaxweynihii ugu horeeyay ee Puntland Somali National Movement oo la yiraahdo SNM Somali National Movement iyaduna waxay ka jirtay in the North West Somalia waqooyi galbeed ee Soomaaliya waa magaalada Hargeysa baa saldhig u ahayd iyo gobolka waqooyi ee Somaliland hadda la yiraahdo founded in 1981 ayaa cariga Ingiriiska laga asaasay Ethiopia ayay saldhig ka dhigatay magaalada Daredeba ayay ka soo dagaalami jirtay markii dambena waqooyiga ka qabsatay siyaad barre halkaas saldhig u ahayd dawladda waxay kula dagaalantay waqooyiga waa tan keentay in Hargeysa la duqeeyo Hargeysa waxa isku qabsaday SNM iyo waa maxay siyaad barre ayaa isku qabsaday oo mucaaradad ay halkaas waqooyiga ka soo kicisay halkan SSDF baa ka dagaalamaysay koonfurtana waxa dawladii ugu galay jamhad la yiraahdo United Somali Congress uu hogaaminayay nin la yiraahdo General Maxamed Faarax Xasan Ciidid nin la yiraahdo ayaa hogaaminayay in the south ayay ka jiray founded in 1987 dalka Talyaaniga ayaa lagu soo asaasay laakiin Ethiopia ayaa base u ahayd The clan-based armed opposition groups eventually managed to overthrow the Barres government in 1991. Jamhadahaas ku salaysnaa qabiilka waxay ahaayeen jamhado opposition groups mucaarada ay ahaayeen oo dawladda ka soo wada horjeeda dhammaantoodna waxay doonayeen inay ridaanin siyaad barre markii hore hadafkoodu ahaa markii dambena waxay noqotay inay ku dagaalamaan talada dalka iyo siyaasadda dalka inay ku dagaalamaan isku fahmi waayaan eventually managed jamhadahaas ugu dambeyntii jamhaduhu waxay xilka ka tuureen waxa u fududaatay inay maareeyaan inay suurta geliyaan to overthrow the Barres government in 1991 ayay talada ka tuureen siyaad barre jamhadahaas marka jamhaduhu way badnaayeen saddexdan kaliya maahan oo waxa jiray jamhad la yiraahdo SPM oo la yiraahdo Somali Patriotic Movement oo ka dagaalameysay dalka magaalada Kismaayo ayaa saldhig u ahayd Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe iyo dhulkaas iyo gobolka Gida iyo dhulkaas ka dagaalameysay jamhado badan ayaa jiray oo ku arki doono casharada soo socda laakiin saddexdan jamhadood waa saddexdii jamhadood ugu xoog badnaa SSDF Puntland bay ka dagaalameysay SNM na waxay ka dagaalameysay waqooyiga Soomaaliya USC na waxay ka dagaalameysay koonfurta ayay ka dagaalameysay waana saddexdii jamhadood ugu saameynta badnaa ayay ahayd ugu dambeynna ku guuleystay inay siyaad barre ee talada ka tuuraan by the 1988 hadda halkaa eegto waxaa kaaga muuqda hogaamiyaashii soo maray hogaamiyaashii kala hogaaminayay jamhadihii kala duwanaa ee dalka ka jiray Colonel Abdullahi Yusuf Ahmed wuxuu hogaaminayay SSDF General Maxamed Faarax Ciidid wuxuu hogaaminayay USC Master Cabdiraxmaan Tuur wuxuu hogaaminayay jamhadii la oran jiray SNM Colonel Ahmed Umar Chesna wuxuu hogaaminayay jamhad Kismaayo halka ka jiray hadda aan sheegayay oo la yiraahdo SPM ayuu hogaaminayay xagga hoose da akhriso waxa ku qoran what is their legacy su'aal waxa la isweydiiyay raggan kor ku xusan Allah u naxariisto dhamaantood waa geeriyoodeen muxuu ahaa dhaxalkii ay ka tageen taariikhdu wax walba waa dhigtaa xumaan iyo samaanba wixii bini aadan ku geysto taariikhdu waa dhigtaa dhaxalkoodii wuxuu ahaa inay rideen dawladii dalka ka dhisnayd ee siyaad barre aysan keenina wax xala Soomaaliya u keenin laakiin Soomaaliya ay burbudhay waxay la dagaalamayeen waxa loo yaqaano ninkaas ay u jeedaanin Maxamed Siyaad Barre ayay jamhadahaas la dagaalamayeen Allah u naxariisto waa dhintay waa jaalasiyaad wuxuu ahaa nin wanaag iyo xumaan ba leh xumaantiisa iyo wanaagiisuna ay isla eg yihiin ayuu ahaa halkaas waxa inoo ku eeg arday part 1 chapter 7 ayaa inoo ku eeg waxaan ka soo hadlaynay
Somali Civil War ayaan ka soo hadlaynay ilaa iyo hadda waxaan ka hadalnay chapterka waxa inoo dhiman laba qaybood qaybatan waxaan kaga hadalnay overview ku saabsan guud ahaan dhacdooyinkii Soomaaliya ka dhacay muddadii lagu dhex jiray dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya waxaan ka soo hadalnay sidoo kale oo gudaha u soo galnay causes of Somali Civil War waxyaabihii sababay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya oo number 1 ka ahayd jabkii dagaalkii ogaadeen ka soo gaaray Soomaalida number 2 ay ka ahayd jamhadihii danaha kala duwan watay oo Itoobiya dabada ka riixaysay oo dalka burburiyay qabiiladana isku diray jamhadaha oo adeegsaday qabyaalad oo qabiilka u adeegsaday tool ay danahooda ku gaaraaneen sidoo kale waxaan ka soo hadalnay iyaduna oo point muhiim ahayd dagaalkii sokeeye inay sababtay siyaasado kala duwan oo dana siyaasadeed kala duwan ay jamhaduhu lahaayeen waxaan u nimay sidoo kale jamhadihii iyo dagaal ogayaashii Soomaaliya waxa ugu caansanaa jamhadihii ka jiray jamhadii SSDF oo reer Puntland ay taageeri jireen SNM oo Somaliland ka dhigay USC oo koonfurta ka jiray SBM oo ka jiray Kismaayo halka Jubbada Hoose guud ahaan baartigan intaasan diiradda ku saar baarti 2na waxaan ugu tagi doonaa sidii siyaad barre talada looga tuuray iyo waa maxay cidii ka tuuray ayaan ugu tagi doonaa baarti 3na United Nation Intervention faragelintii UN ku sameeyay Soomaaliya ayaan ugu tagi doonaa waxaynu ku dhaafayaa amaana Allah